kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo caalamku dhan naga dhegaysanaysaan kuna soo dhawaada waraysi gaar ah oo warbaahinta Somaliland Live Media ay la yeelatay Muniir Axmed Cigaal oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka wadani. Muniir Axmed Cigaal oo hadda wadanka Sweden ku sugan ayaan wax ka weydiinay saldhigga military ee Somaliland magaalada Berbera ka siisay wadanka isugu tagay Imaaraadka Carabta iyo saameynta uu mustaqbalka fog ku yeelan karo Somaliland. Sidoo kale waraysiga dhegaystayaal ayaa ku maqli doontaan tuhunka ku saabsan doorka xukuumadda Soomaaliya ay ku lahayd bixinta saldhiggaas iyo sida xukuumadda Somaliland iyo xisbigeeda xaakimka kulmiye ugu kala tagsayin arrintan. Dhegaystayaal waraysigan ayaa ka mid ah waraysiyo taxana ah warbaahinta Somaliland Live Media ay toddobaadada soo socota ku darsi doonto bal cawaaqibka bulshada Somaliland ay mustaqbalka ka dhaxli karto saldhigga military ee Somaliland ka siisay magaalada Berbera wadanka isugu tagay Imaaraadka Carabta. Waraysiga ayaa ku bilaabmaya Muniir Axmed Cigaal oo ka jawaabaya su'aal ahayd bal sida bixinta saldhiggan ay marka hore waafaqsan tahay qawaaniinta shuruucda Somaliland u taala. waxaana isagoo arrinta ka hadlaya uu yiri Muniir Axmed Cigaal sida tan. aad baad mahadsantahay Muniir aduna fursada aad noo hortay dhawaan saad kula socotay Muniir in waxa baarlamaanka Somaliland oo isku dhan golaha guurtida iyo wakiiladuba ay si wada jir u ansixiyeen saldhig military magaalada Berbera laga siiyay isku tagay Imaaraadka Carabta bal qaabkii loo maray sharci ahaan maxaad aragtidaada ku daraysaa runtii arrintan saldhigga military runtii Somaliland ka taagnay horta mid waa arrin Somaliland inay tahay wadan u diyaara in la maalgashado u diyaara in runtii ay adduunka la macaamiloto waxaasoo dhan Somaliland runtii waa dal u taagan sida dalka kale adduunku ay u taagan yihiin arrinta saldhiggaasi waxa keentay iyo mashaariicii kale ka horreeyayba maxaa la isweydiin karaa buuqan iyo qayladan iyo saskan badan ee ummaddu ka muujinayso keenay waa su-aal meesha taala waxa weeyaan aynu ku soo durugno mashruuca ugu dambeeyey saldhigga militariga ee dalka Imaaraadka horta marka koowaad xanaanka iyo shuruucaha Somaliland u dejisanay 3 dhaarood bay ku fadhidaa waxa weeyaan xukuumadda oo fulintiya sharci dejinta iyo garsoorka Somaliland shay lahayd ka tirsan waxay ku nabadii caalamaashay oo ay ku soo tarantay oo ay ku soo gaadhay dawlada sharciga waxay waliba Somaliland gaadhay sidaan dalada weyn aad ku gaadhay in cidii sharciga ka hortimaada meel loogu soo wada jeesto nasiib darro maanta waxa muuqata in sharcigii Somaliland uu soo faydmaayo oo awoodii oo dhan ay xagga xukuumaddu ay qaadatay oo overpower ay noqotay oo maanta sharci dejintii runtii ay waliba u adeegsatay golaha Somaliland golayaasha hadday tahay baarlamaanka iyo hadday tahay guurtida waxay leeyihiin xasaanado waxay leeyihiin karaabooyin waxay leeyihiin shuruuc waxay leeyihiin xanaan ay una wada shaqeeyaan xukuumadda haddii hannaankaa laga faydo oo runtii dhaawac la gaarsiiyo dhaawacaasi ma aha dan markaa xukuumadda joogta ay firshay oo keliya laakiin waa dhaawac Somaliland la gaarsiiyo waan gartay Muniir markaa dhaawacu muxuu yahay dhaawaca ku muuqda walaal muxuu yahay markaad arkaysaa walaal dhaawaca ay muuqda wixii sharcigii ayaa dhaawac la gaarsiiyey hadday tahay hanaankii loo maray oo ahaa midka hananada loo sharcigeedu jideeyay in maalgashiga dalka loo maro maalgashiga marka ay xukuumaddu soo gasho waxaa la keenaa sharcigaas badankiisii sida hadday ogolaansho imika xukuumaddu ku doodayso ay leedahay ogolaanshadii baan baarlamaanka ka doodaynaa waa la yaqaanaa adduunka dhan shuruucda waxa isu wada runtii dhow weeyaan wadan markuu maalgashi galo sida inagu sharcigaynu qaadanay ee uu doonayo in golaha dadkii ay soo doorteen uu ka ansixiyo xukuumaddu way soo dalbataa baarlamaanka la keenaa baarlamaanka marka la keeno ama wakiilada la keeno golaha wakiilada shirguddoonka loo soo gudbiyaa shirguddoonka la taliyaha sharciga ee golaha oo ayuu u gudbiyaa oo ay yiraahdaan soo eeg inuu qawaaniinta iyo dastuurka iyo shariicada islaamka aan ku hormaraynin waa sharci kasta ama mid maalgashi ha noqdo ama mid maalgashi isgaarsiineed ha noqdo la taliyuhu 4 saacad ka bacdi uu ku soo celiyaa shirguddoonka dabeetana guddi hoosaadka arrintaas u qaabilsan hadday tahay guddi hoosaadka maalgashiga iyo hadday tahay guddi hoosaadka dhaqaalaha guddi hoosaadkaasaa loo gudbiyaa 7 cashay soo dhaafishaan ama 5 casho hadba sida ay ku soo dhameeyaan dabeetana waxay ku soo celiyaan golaha iyagoo leh halkaa iyo halkaa iyo halkaa ayaa sharciga ayaa arrintii aad noo gudbiseen goldaloolooyin ugu aragnay hal la buuxiyo ama hal la ansixiyo ama yaa la ansixin markaasaa dabeetana xildhibaanadii oo loo qaybiyey markii horena la yidhaahda ha ka doodaan doodaasi ka dhiibtaan
somaliland iyadoo xildhibaan ku dhahan la tutuubay iyadoo la riixayn iyadoo dhulka lagu tuurayn iyadoo la caburinaynin xildhibaanada wixii maalintaa dooda dhiibta haddii ay wada dhiiban kari waayaan waa inoo berita u dhahaa guddoomiyuhu beritadiiba halkii laga sii ambaqaadaa dabeetana marka dooda la dhamaystiro ayaa doodii qoran oo doodii xildhibaanada dhiibtana qoran baa xildhibaanadii mar labaad loo qaybiyaa markaasuu guddoomiyuhu cod geliya arrintii oo yidhaahdaa doodii marka way noo dhammaatay xildhibaanadii way dhiibteen haddaba ciddii ogol iyo ciddii diidan ayaynu markaa codkii gelinaynaa laakiin waa qaabka jujuubka saleebaan runtii aan ka xumahay taariikhdiisana inay u gasho jujuubka runtii loo galay aad moodid 1 daqiiqad waddaydii u dhamay xildhibaankii sidii doodaada dhibayntiina xalaashahay runtii dhulka lala dhacay oo leer waaweyn isdhigay jira oo cali xaaji iyo xildhibaankii xaamid ninka odayahay weynaaye ka mid ahay dhulka lala dhacay arrin somaliland oo dhan ceeb ku noqotay lahayd fooreri lahayd taa marka laga timaado waxa meesha la keenay sharci ma ahayn heshiis ma saxeexnayn nuqullo fooraha la garaacayo sidii xayisiisyada kasoo qayb gal furitaanka hudheelkaasoo kale ah ayaa habeennimadii laga gaadsiiyo la daabacay dabeetana beelbeel baa loola shiray xildhibaanadii waad ka garaysa waa somaliland $2 milyan baa lagu waali karaa haddii dalka dee aan loo turay oo aan runtii loo dhaxaynin dabeetana waa la fooleriyey xitaa sharciyan habka guurtida u galay iyo guddoomiyaha guurtida sidan uu codka u geliyey sida guurta loogu faslay arrimo fara badan ba walaal soo maray oo runtii maalgashiya oo ay diiday baarlamaanku qaarna la yeelay qaarna intii xukuumaddu jirtay aan la qaadan waxaa ka mid a maxaamahoo kale baarlamaanku wuu diiday dhibaataa ka dhacday golaha guurta looguma yeelin laakiin markay artay xukuumaddii baarlamaanka diiday haddana way iska marsatay waxa qaaray ka istaagtay oo ay ka mid ahayd birtii la dhiganayay dekeda oo si ay maalgashi lagu sheegay oo MOT waxaan aynu loo yaqaano gobonida lagu sheegareeyo ay xukuumaddu soo dhigtay oo ay baarlamaanku cod aqlabiyada ku diideen oo ay ka jirtay xukuumaddu waxaas guurta loo mariyey kii BBO baa jiray runtii xildhibaanada dee caqligooda laga laagushay waana laga xumahay oo isaga qudhiisa aan guurtada la marin marka laga kaadayba arrinta guurta sharciyada loo maray xaaraan bay ahayd meesha lama keenin heshiis meesha sharcigii lama dhowrin waa kaa xoog weynahaya sidii ugu hanjabayay wasiirka madaxtooyadu ayuunbaa la bariyey marka taa laga kaadayo xukuumadda lafteedii waa ku kala qaybsanayd si gaarimaha dabadda wuxuu sheegay inaan wax heshiisa la gelin taatigiina waxa u furay wixii meesha la keenay muu soo raacin isagu arrinku kooban runtii dhowr qof ayay runtii ahayd oo maxamuud iyo dhowr qof ku kooban marka waa nasiib tara aad iyo aad weyn baa dhacday waana waxa lagu xaraya maaha ummadda somalilandna waxa weeyaan ay mid ogaato waanta marka ama aynu wax cunayno ama wax wadaagayno ama wax wada samaysanayno wixii lagu heshiisiyay dalka aan ku qaybsanayn ayaa runtii wax ah adduunka oo dhan khayraadku dhibaatooyin buu leeyahay marka haddii si la gacan bidixeeyo nigeria ka dhacday africa oo dhan bay ka dhacdaa haddii aan waddanka khayraadka uu leeyahay ama hanti uu leeyahay ha ahaato ama khayraad lasoo saaray ha ahaatee aan si daahfurnaana oo loo siman yahay aan lagu wada samaynin dhibaato ka badan baa ka dhacda dhibaatada baa dhacda cid gaar ah bulsho waa dhibaato runtii la tijaabiyey oo dalka dhibaato u keenta marka walaalo haddaan soo kabo sharciyada la afduubay taasay ahayd garsoorka isagana dee runtii waxyaabaha su-aashu ka taagan tahay dee maxkamadihii iyo ilaa maxkamadda sare leenoo arkaya hanaanka dee loo maray waan gartay munir waa la fooreriyey baa tidhi waana sharci darro haddiiba aynu sidaa u qaadano in waxaynu ognahay in madaxweynaha somalilan oo hadda muddo kordhin koobanoo dambe ku jooga dalka uu wakhtigii gabagabada ku jiro oo aanu mar labaadna is soo sharaxaynin in muddo badan buu dalka soo sharaxay hadda 7 sano dhaafaysa maxaad u malaynaysaa waxaa ku kalifaya in heshiisyo taariikh xumo sababi kara oo dhaawici kara wuxuu 7 sano soo qabanayay inuu gabagabada ku soo khatimo xukunkiisa جمهورية الصومال مدن أحمد محمود سيلاي سida looga bartay taariikhdiisa sida looga bartay aqoontiisa dadkii horreeyay dalka waxa weeyaan dadka af Soomaaliga ku hadla aqoonta heerka sare gaaray buu ahaa taariikhdaadii aad u cariiq u leeyahay oo dheer oo farabadan dalka halkiisu qayb weyn ka soo qaatay runtii u malayn maayo madaxweynaha inuu wax dadkii dadka waxyeelay u bareerayo laakiin kulliy waxaan uu eeda saaraya ciidan madaxweynaha runtii waxaan soo hordhigay ka soo shaqeystay wakiilka ahay in ayadu eeda ugu weyn ay ku leedahay oo sida aad u sheegaysid dadima hadday kooban tahayba doonaysa inay runtii fool eriyo
oo ama mashruucyo laga gaarsiiyo runtii ugu dhigaya waxaad ogtahay in xisbiga kulmiye inkastaan oo cadaysan inuu ku kala jaban yahay oo iyaga is eedaynayaan oo isaflagaadeynayaan oo saxaafadii isu marinaya hadalla kakan oo taageerayaashii runtoodii murashaxa kulmiyahoodii ay sasan yihiin oo interest kala gaaraba meesha isjiiraya oo gruub ah marka anigu runtii shakhsiyan anigu madaxweynaha waa arrin maayo shakhsiyan mana filayo inuu isagu tallaabooyinkan maaragtay runtii isagu ku maaragtay riixayo laakiin dad dana gaara kan lahun unba arrinta runtii anigu aan u aaninaya inay wadaan waan gartay haddiiba uu sharci darro yahay in muddada koobanna la meel marsaday haddii aanu isagu maanta ama aanu xisbiga kulmiyaba guulaysto ama xukuumad idinkuba guulaysataan oo wadana dalka imaado ma laga laaban karaa shuruucda noocaase fool eriga lagu marsaday in hay-adaha sharci dejinta dalka waa laga laaban karaayo wixii aan sharciga wada eeg xukuumadda dalka way isdhexlaan oo nidaamku xukuumad waxbay soo qabanaysay laakiin wax sharciya waa la isku dhexlaa marka hal xalaal in xalaala ma dhasho waxaan sharcigii waddankaygaba intaanan kabadoodinba ma la keeni karaa ma iman karaa sharciga waddankaygiiba ma marsana oo sharciga waddankaygiibu ka soo horjeedaa marka waxa weeyaan mar haddaa mashruucii waddankii aan la marin oo shakhsiyaad gaari wax galeen oo tuhno badan ku dahaalan yihiin dee waxa weeyaan waa arrin furan oo aan runtii cid aqbalaysa shacabkuna aan aqbalaynin xisbigii yimaadaan kuu doonaan ahaade haddaan midhaa iska ridin aanu aqbalaynin dalkuna aanu aqbalaynin waa gartay waxa dhawaan soo baxaysay ama sidaynu shalba media ka arkaynay in dawladda Soomaaliya ay iyadu dhexdeedu isku eedaysay oo qaybo kamid ay leeyihiin qaybo Soomaaliyeed ama xukuumadii hore dhawaanta la bedelay baa door ku lahayd heshiiskan ma qabtaan oo si warma kugu muuqata aragtida noocaas ah inay Soomaaliya wax door ku lahayd heshiiskan way ugu muuqataa waxa waxa weeyaan hadda madaxweynaha weydiinaysa sida madaxweynaha khudbadiisa dib u eegtid waxa ku jirtay khudbado maruu shiraalada ka hadlayay oo lahaa warqadu badan la aqoonsanay international law baa jira hadda kalimaha eegtid Soomaaliland way ognayn waxay halkamayeen adduunka mid noqon dalkeena iyo dalkeena inaga adeer leh halka taata laakiin mashaariicahan runtii la tooleeyo waxa muuqata in cid kale ay ku jirtay in badan taas aan Soomaaliland iyo dadka wax gaarka ay hadalayo xukuumadda xasan sheekhna tan iyo BB walba ku jirto way Soomaaliland Imaaraadka ma aqoonsana carabta way ognahay Soomaaliland kala taageeyeen iyo runtii sida ay waxa dagaalka la galeen haday tahay markii la halgamayay in siyaasad barra runtii dhibaato badan dadka ku hayay iyo hadii ay tahay wax yabanayniba labadooda dagaal bayna la galeen wax gacan la kabaynaayeen carab cadow ugu weyn ee Soomaaliland lahaabay marka cid ay aqoonsiin iyagu mar walba ugu urursanayaan ay isu keenaan ama ay inta badan wax ka saxeexdaan waa Soomaaliya xasan sheekhna si toos ah arrintan uga wada shaqeeyeen arrintan in shay dhawaaqan hadlayna waxaan u arkaa oo farmaajo oo xukuumaddiisa cusub oo mas'uulka nayilka maanta uu ka tirsan yahay in ay sidii ay codka ku heshahay inay shisheeyaha runtii diiday iyo dalka kusoo duulay inay Soomaaliland ay ku sheegin jireen ay ku sheeganayaan laakiin sirahay faafiyeen waa midaas weyn oo inuu ma daraseen waanu sheego wuxuu yidhi xukuumaddii hore ayaa wax ku lahayd mas'uuliyiinta sadway marba hore tagayo daarta ku curiyay marka waa markii kooxda Soomaaliland dhawaaq subax xamar ay ku kala qaybsamaan ilaa 19 wala tuunka iyo sharciyada ay xukuumadani samaysay wuxuu xalaal bana geeray ka day inaga qaybsanaantan iyo mushkiladan in yar ay runtii bangaar ka eegayso ayaa bay inoo keenay qolada Soomaaliya inuu bu'aan oo runtii ay wax badan deeyno soo sheegtaan laakiin dhawaaqa uu sheegay ninkaasi waa mid xaqiiqo anigu sida shakhsiyan aaminsan anigoo dalkayga jiritaankiisa iyo anagu leenahay oo ay ka tashay anaga ay noo gaar tahay haddana arrinta uu sheegay waa mid daba waan gartay in Munir waxa mudaba soo baxaysay ama ha noqoto dekada oo lagu wareejiyay shirkadii WLB amba ha noqoto tan hadda bayskan amba saldhigan laga siinayay berbere inaan heshiisyada dhabta ah Soomaaliland la horkeenin amba baarlamaanada aan la horkeenin Soomaaliland waxa la ansixiyo in nuqul la noqoto marka ma laga yaabo in heshiiska rasmiga ah uu Imaaraadku Soomaaliya la saxeexday Soomaaliland waxa laga meel marsaday inay nuqul heshiis tahay waa mid taas wax weyn oo wati adina waa dad weeyaan lama soo helay heshiiska rasmiga ah keenay waa ma keeni karaan waa heshiiskani gacan kurmisa oo runtii Soomaaliland aqliyadeeda laga laaluushayo KDB oo rasmiga lama keeni karo kana lama keeni karo waxa loo keeni karaa waxa weeyaan halaakii loo galay ayaa ahaadina umada Soomaaliland loo soo bandhigi karno daafuraan aan ahayn marka waa sababta ku leeyahay dhammaan heshiisyadaasi sharciyada umar xalaal isticmaal la qashabay Soomaaliland hore u tiri
hadday xalaal yihiin buuqan bay isbeygeliyeen qolada xukuumaddu ama cidda wada ama shakhsiyaadka wadaaye ummaday soo bandhigi lahaayeen faa'iido waxyaabaha lagu qoslo waxa kamid wada mashruuc hore DB waxa lagu sheegay in ay ku jirto wadada berberiya wajaale ee berber corridor kanna markii ummadda la islaha u qurxiy ayaa la yidhi isla waxa ku jira berber marka ma laba mashruuc hal wada ku wada jirta waa arrin aad iyo aad runtii fajisa leh markii hore wasiirku wuxuu ka kareynay oo karadina meesha kuma qorna haddana wasiirku markuu hadlay wuxuu wax kale ma jiraan mashaariicaha amka ciimaaraadka waddanka ka qabanayo ay mashruucan ku hoos jiraan marka arrin cad ma aha sida baarlamaankii halka wax ka dhintayna runtii waxa ahayd dee dowladda walayaasha soo dooratay oo caqligoodii laga laaluushiyo $12,000 lagu soo koobayay marka walaal waxa weeyaan waa arrin xaaraana oo aan si fiican sharci ahayn loo marin waa gartay gabagabadaynu ku soo dhawaanaynaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxaa muuqata inay ku kala qaybsameen oo ay laba qab u kala fuqeen inkastoo aanu ilaa hadda dareen cad oo muuqda ka bixin in musharaxa in muuse bixi haddana taageerayaashiisa isaga u daacadda aad bay uga soo horjeesteen in marshuucan ma laga yaabaa in kulmiye iyo xukuumaddu ay ku kala tagaan arrintan walaa haddaan ku kala tegina dhaawac weyn bay kulmiye gaarsiisay aaminkii bay ka saartay dalka dee kulmiye muuse ma oran karo waan moogaa waxaan markii dhacayeen ama mashaariicaha noocan la jiifinayo dalka ee xisbigeygana ay xukuumaddu ka codsanayso waan moogaa ummadda uma oran karo kamana iibin karo wasiiradina kulmiye iibin maayaan hadday kulmiye iibinayaan inuu laba kacdayo doorashada mar dambe qabsado ay la doonayaan tan may sameeyeen marka waa arrin uu runtii cimriga xisbiga kulmiye aan u arkay soo dedejinayso iyaga laftoodii waa cilmi isu qarinaya oo taageerayaashiina hoosta iska maagaya oo kale axmed wada aaminsanahay oo gobol isu maagaya oo mas-uuliyiin ahaan isu maagaya marka waa arrin u arka uun runtii in digaya dambe laysu dhiibayo kulmiye laftiisu dee muuse waan ka jigjiga ku yaro dhuumanayay carshe kama dee nin weyn oo dalkan murashax ka noqonaya oo ka ah oo taladiisa doonaya buu ahaa oo runtii weliba khibrad askarinimo leh oo mid diyaaradaha saldhigga military wuxuu leeyahay garanaya inuu ummadda u sharxo maanta oo yimaado haddii khalad tahayna uu yidhaha waxna waa khalad hadday sax tahayna war ummadayda waa sax anigu ku taageersanay bay heeday in dhuwashada ku muuqdo marka kulmiye saameyn weyn bay ku yeelanaysaa taageerayaashiisa bay ku yeelatay walaalo cadaaladda waa la wada doonaa in gaari ma doontee dee iyagii baa ismaagayada maanta soomaaliya cid gaaray ku quuqin jireen iyagii baa isku quuqinaya marka waxa way qaar badan baa kasoo jaba xisbiyada mucaaradka oo kala noqdayba taageerada markaa saameyn weyn ayaa arrimahan xisbiga kulmiye ay ku yeelata hadday tahay ee waddankan la wada iibinayo ee weliba sifa sharciyada loo maray noolaada aad iyo aad mahadsantahay Muniir Axmed Cigaal oo ka tirsan mas'uuliyiinta sarsare xisbiga waddanka khadka telefoonka iyagu waramayay anigoo Idaad Maxamed Cabdi isagoo jooga magaalada isagoo waddanka Sweden jooga aad iyo aad mahadsantahay Muniir